عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. On the authority of Abu Jandab ibn Junada, and Abu Abdurrahman Muad bin Jabal, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said: Have taqwa, fear of Allah wherever you may be, and follow up a bad deed with a good deed which will wipe it out, and behave well towards the people. It was related by At-Tirmidhi, who said it was a Hasan, good, hadith, and in some copies it is stated to be a Hasan Sahih hadith. waxaa laga wariyey Abu Dar Jundub bin Junada iyo Abu Arrahmaan Mucaad ibnu Jabal, Alle ha ka raali noqdee, rasuulka, naxariis Allah korkiis ahaatee, waxaa laga wariyey inuu yidhi: Alle ka cabso meel kasta oo aad joogto, xumaantana ku raac camal wanaagsan oo ay tirtirto, dadkana kula dhaqan wanaag. waxaa wariyey Al-Tirmidhi oo yidhi xadiis xasan ah, iyo qaybo ka mid ah xasan saxiix.